Bismillaahi Raxmaani Raxiim kusoo dhawaada macluumaad ku saabsan tallaalka COVID-19 ee muranka badan dhaliyay oo ay soo saareen Jaamacadda Oxford iyo shirkadda daawooyinka ee AstraZeneca. Warbixintan waxaan kaga hadli doonaa heshiis dhexmaray Oxford iyo AstraZeneca oo ku saabsan tallaalka COVID-19, dadka lagula taliyay inay qaataan iyo dadka aan qaadan karin, wadamada joojiyay iyo sababaha ay u joojiyeen, iyo macluumaad kale oo ku saabsan tallaalka. Nala dhammayso muuqaalka saaxiib, haddii aad ka heshayna la wadaag saaxiibada kale. Mahadsanid. Dhamaadka bishii Abriil ee sanadkii tagay 2020, Jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca ayaa ku dhawaaqay heshiis taariikhi ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19. Heshiiska ayaa ujeedkiisu ahaa in loo qaybiyo bukaanada tallaalka oo ay soo saareen Machadka Cilmi-baarista ee Jenner iyo kooxda tallaalka Oxford ee hoos yimaada Jaamacadda Oxford. Sidoo kale, heshiiska ayaa dhigayay in shirkadda AstraZeneca ay mas'uul ka noqon doonto horumarinta, soo saarista iyo qaybinta tallaalka adduunka oo dhan. AstraZeneca waa shirkad ka shaqeysa in ka badan 100 waddan oo soo saarta daawooyinka, fadhigeeduna yahay Ingiriiska. Kooxda la talinta istiraatiijiga ah ee khabiirada tallaalka Hay'adda Caafimaadka Adduunka oo loo soo gaabiyo SAGE ayaa soo saartay talooyin ku meel gaar ah oo ku saabsan isticmaalka tallaalka Oxford. Kooxda ayaa ku talisay in marka hore mudnaanta la siiyo shaqaalaha caafimaadka ee halista sare ugu jira soo gaarista cudurka iyo dadka waayeelka ah oo ay ku jiraan dadka da'doodu tahay 65 jir iyo wixii ka weyn. Sidoo kale, tallaalka waxaa lagula talinayaa in ay qaataan dadka qaba cudurrada loo aqoonsaday inay kordhiyaan halista COVID-19 oo ay ku jiraan buurnida, cudurrada wadnaha, cudurrada neef-mareenka, iyo cudurka macaanka ama sonkorowga. Dadka qaba cudurrada HIV-ga ama nidaamka difaaca jirkooda uu aad u liito ee lagula taliyay inay qaataan tallaalka waxaa la tallaali karaa oo keliya marka ay helaan macluumaad iyo la talin gaar ah. Weli xog rasmi ah oo la isku halayn karo lama hayo in la siin karo dumarka uurka leh, balse waxaa la ogyahay in fayraska corona uu halis daran u geysto uurku jirka. Tallaalkan lama siin karo dadka qaba xasaasiyad daran, qayb kasta oo ka mid ah tallaal. Sidoo kale, dadka da'doodu ay ka yar tahay 18 lama siin karo ilaa laga helayo daraasado dheeraad ah. Dooska ama qiyaasta lagula taliyay in la qaato waa 2 doos ama 2 mar oo qofka laga siinayo muruqa 0.5 mililitir oo u dhaxaysa 8 ilaa 12 toddobaad. Inkasta oo tallaalkan aan weli lagula talin liiska isticmaalka degdegga ah ee WHO, haddana waxaa dib u eegis ku sameysay Hay'adda Daawooyinka Yurub ee loo soo gaabiyo EMA, waxayna sidaas awgeed buuxisay shuruudaha WHO ee tixgelinta ururka SAGE. Hay'adda Daawooyinka Yurub ee loo soo gaabiyo EMA waxay si buuxda u qiimeysay xogta tayada, badbaadada iyo waxtarka tallaalka, waxayna ku talisay in la siiyo oggolaansho suuq-geyn shuruudaysan oo loogu talagalay dadka da'doodu tahay 18 iyo wixii ka sarreeya. Dalal badan oo qaaradda Yurub ka mid ah ayaa joojiyay isticmaalka tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 cabsi laga qabo in tallaalka uu sabab u noqday qaatayaasha qaarkood inay yeeshaan xinjiro dhiig ama dhiig-xinjirow. Sweden iyo Latvia ayaa Talaadadii maanta ee 16 Maarso noqday wadamadii ugu dambeeyay ee joojiyay tallaalka, kadib markii ay hore u joojiyeen wadamada Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Denmark, Norway, Holland iyo wadamo kale. Soomaaliya ayaa Isniintii shalay heshay shixnadii ugu horeysay ee tallaalka COVID-19. Dowladda Soomaaliya ayaa Isniintii ku dhawaaqday imaatinka 300,000 oo doos ee tallaalka COVID-19 oo ay soo saareen Oxford iyo AstraZeneca oo ah tallaalka caalamiga ah ee Covax. Tani waa shixnadii ugu horeysay oo ka mid ah 1.2 milyan oo doos oo ay Soomaaliya heli doonto si loogu tallaalo 600,000 oo shaqaalaha safka hore iyo xubno ka tirsan kooxaha kale ee u nugul, ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO.